iyadoo dhawaan la filayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk Soomaaliya ay ka bilaabato deegaanada Hirshabelle ayaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle waxaa dib ugu soo laabtay madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen oo maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ugu qayb galaya shirka wadatashiga qaran ee looga arrinsanayay dardargelinta arrimaha doorashooyinka dalka. Madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha gobolka Shabeellaha Dhexe ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe kan degmada Jowhar, mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabelle ee qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Jowhar oo ka kala yimid xaafadaha magaalada. Sidoo kale socdaalka madaxweynaha waxaa ku weelinayay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe, xildhibaan ka tirsan baarlamaankii 10aad ee golaha shacabka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabelle. dhawaan ayaa la filayaa in doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk Soomaaliya ay ka bilaabato magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne ee gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo loo aasteeyay. Sidoo kale magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle waxaa ka jira dhaqdhaqaaq ku aadan doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalk Soomaaliya oo maalmaha soo socda la filayo in magaalada ay ka bilaabato. Imaatanka madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ee magaalada Jowhar ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhawaan shirka wadatashiga qaran laga soo saaray arrimo ku saabsan dardargelinta arrimaha doorashooyinka dalka. Ibrahim Cali Nuur, TV Universal, Jowhar.